طبعا markii gumaystayaasha Yurubiyaanka ay yimaadeen wadanka Soomaaliya kaliya ma doonayeen inay gumaystaan dhaqan ahaan iyo diin ahaanba waxay doonayeen inay u bedelaan oo mid walba uu sameeyo luqadiisa inuu kaga tago inuu diintiisa kaga tago iyo sidoo kale inuu sumadiisa ku suntado dabcan Soomaaliya iyo Djibouti iyo inalaaliya intii magaranaysa Soomaaliyeed ahaydba waxay ahayd mid uu gumaysta ku habsaday marka lagu soo duulay halkanina marka laga yimaado wadanka Djibouti halkana waa Muqdisho waxa weeye koonfurta Soomaaliya oo marka iyagana laga dhistay cathedral oo ahayd tii Catholic Romanka oo marka Talyaanigu ay ka dhisteen halkana waa islayadii oo marka ciidamadii Talyaanigu ay dhex fadhiyaan aba ay joogaan dabcan diinta Kristanka waxa hor socday militariga dawladaha fidanaya diinta Kristanka kuwaas oo Afrika 90% ku fidiyay diinta Masiixiga iyagoo wadamo fara badan ay gumaysteen alaanada ay yihiin 100% ama 50% ugu yaraan wadamo Kristan sida South Africa Kenya ay sheegay Nigeria iyo wadamo kale oo ka sii badanba sidoo kale ninkan waxa weeye waa baadirigiisna oo marka Hargeysa yimi oo isna hortaagan kaniisadan ma kala hubo inay tii hore ahayd iyo mid cusub inay dhiseen kolba isagu leeyihiin wuxuu yimi inuu marka indhayo amba eego kaniisada cusub ee la furay bishii 8 sanadkii hore dabcan sanadku ma 2020 ama 2019 ma kala hubo halkan marka waxa weeye kaniisadii iyaduna Catholic ahayd ee magaalada Hargeysa dabcan kanina waa mashruuci Catholic missionka ee marka berbera oo aad u weynaa oo marka ku jiray qaybta kaniisada qaybta meesha boardingka meesha tababarta amba waxbarashada meesha hadii ay ku runiyay ciyaalka inta amba hablaha iyo nimanka la soo roolay waa la quudinaya amba ay deganaayeen qaybtii sisterska iyo nimanka Catholic ay deganaayeen waxa filayay inuu ahaa nin Belgium ka yimid baadirka miya mashruuca haystay wax saasa way jireen iyaguna kuwa French miya mise Belgium oo marka iyaguna baab kale oo Kristanka iyaguna fidiya way jiraan oo Ethiopia marka dhinaca xagga iyo heerar ka yimi sidaan muuqaalada ku akhriyay adigu midan iyo kuwa kale oo adigu total ilaa 4 kaniisadood ama mashruuc way ka fureen gobolada waqooyi markii dambana qayb adigu baadiyaha iyo xaggaasi u rareen oo marka xaggaasi maadaama halkan ay kululayd adigu markii dambe marka lagu yara fahmay oo sayidka iyo daraawishta ay ka hor yimaadeen oo xogaa qayladii ay kor badatay maadaama sayidku uu magaranaysa aad u weyn ummadda kaga horkeenayo mashruucan gaalaysiinta uu ummadda doonay inuu ku kiciyo inkastoo dad fara badan sayidka ay diideen inay raacaan oo ay ka hor yimaadaan dadkan gaalada haddana Ingiriisku si uu taa uga hortago in lagu kaco wuxuu sameeyay mashruucii bedelay wax la dhaho ololaha waxbarashada dabcan mashruucaasu waa waxa mid lagu hoos dadayo gaalaysiinta mashruucan gaalaysiinta dhallaanka iyo hooyooyinka iyo ciyaalka sidoo kale waa arkaysan sawirradii carruur yar la soo dhigay leeyahay carruurtii ugu horeysay Kristiyaano Soomaaliya ku dhalata marka inay halkan ku dhasheen berber ku dhasheen iyo deegaanka baadiyaha ay ku dhasheen ma hubo laakiin sawirradii waa arkaysan carruurtii yar ay leeyahay diinta Masiixiga ku dhasheen dabcan mashruuca gaalaysiinta waxbarashada ee marka iyadoo la dhahayo waxbarashada ayaanu idin furayna ama jaamacado oo lagu qarinayo mashruuca gaalaysiinta maaha mid beriga taagnaa hadarna uu taagan yahay mashruuca abaarso baa kamida mashruuca sidoo kale Soomaaliya laftirkeeda dhinaca Muqdisho mashruuciyo leeyahay waxbarasho oo marka diinta Kristanka ku hoos gabanaya ayaa iyaguna jiray marka dabcan wadamada saboolka runtii diinta Kristanka ayaa loo soo xawilay iyagoo maadaama ay yihiin dad saboola looga dhigayo waxbarasho amba barnaamijyo kale oo magaranaysa indhaha lagu fiiqayo maadaama qofku magaranaysa dadka saboolka aysan ahayn dad dhab ahaan u madax bannaan haddana mar walba mashruucyada Kristanka ayaa loo keenay iyagoo loo soo huwinayo mashruuc gargaar indhaha amba caafimaadka amba waxbarasho ummaduna runtii ayna ka balaarugin aadmooysa taas inay mar walba soo noqoto ayaan daro Soomaaliya dhowr jeer ayay ku dhacday taasi kuwanana waxa weeye halkanuna waxa weeye qubuurihii amba xabaalihii ciidamadii cadaanka amba askartii Ingiriiska marka ku dhintay dagaaladii amba adeega intay joogeen wadanka gumaysanayeen ciidamadii kaga dhintay iyagoo marka calaashan askar wadanka ka ahaa marka gobolada waqooyi gumaysanayay xilliga oo wadku u yimi ama hal lagu dilay iyaguna magaranaysa waa adigu 115 askari waxa iyaguna jira xabaalo amba kuwa kale oo marka iyagana aan la xusin tiradooda amba aan la magacyadooda aan la sheegin oo marka qayb ka mid ah laga soo bedelay dhinaca iyo berbera kuwa laga keenay oo ku dhintay dagaalkii iskaga hor yimaadeen dagaalkii labaad ee adduunka iskaga hor yimaadeen Ingiriiska iyo Talyaaniga markay ku dagaalameen magaalada berbera
kuwa ku dhintayna waa la keenay dabcan sidoo kale iyaguna waxaa jira xabaalo kale oo markaa ayna xusin oo markaa ayna duldhigin halkan markaa waxaa jira iyaduna memorial amba taalo loo sameeyey ciidamadii ingiriiska ee ku dhintay dagaalkii labaad ee adduunka iyo sidoo kale ciidamadii ku dhintay waajibaadkii yani iyagu waajibaad bay dheheen calaasha xilligay gumaysanayeen dhulka gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed sidoo kale iyaduna waa iska ayaan daro iyaduna iska taagan oo markaa ummadda Soomaaliyeed iska haysata oo yani dadkii ku gumaysteen cadaankii markaa ay gumaysanayeen yimaadaan dhulkii oo markaa ay haddana ku dul xusaan dadkii ama iyagiiba la dhaho noo sameeya meel lagu xuso dadkii iyaga addoonsanayay ama rartay amaba gumaystayba ama diintaba ka saaray waa iska ayaan daro runtii waxaan kusoo gunaanadayaa sadar yar uu markaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan Tiriye Allah naxariistee markii laga saaray dhulkii laga qabsaday gobolka Togdheer Sool Sanaag Nugaal dhulkaas oo dhan markii daraawish laga qabsaday isaguna uu tagay iimay ayaa gabaygan butriyay muddo yar ka hor geeridiisii isagoo markaa sadarkan marinaya oo leh dariiqii rasuulkii wixii diinta laga saaray sallallahu alayhi wasallam marka ninka sancadaaluhu markaa dadkii xataa haba gumaystay xataa diintoodii inuusan nabadgelin oo dad fara badan oo dhalaan iyo haween iyo dad dan yar ayuu diinta ka jiitay isagoo markaa gumaysina ugu sii duldalay waana ayaan darada ummadda Soomaaliyeed ku dhacday walow aad moodo in ummadda aan runtii laga wacyigelin amba loo tilmaamin waxyaabihii ka dhacay bal xataa sayidka iyo daraawish iyagiiba la sii maagay ayaan daro taasuna waxay sababtay in ummadda Soomaaliyeed ay noqotay dad runtii aan garanayn dhibka iyo taariikhda ay ka soo mareen gumaystaha oo mar labaad gumaysi dahsoon dib ugu noqday mashaariicdan hore uga dhacayna mar walba lagu soo celceliyo oo ay noqdaan aafooyin ku soo noqda ummadda Soomaaliyeed iyagoo loo soo huwinayo qaab mucaawino iyo qaab caafimaad iyo sidoo kale qaab waxbarasho sayidkuna sidii markaa taa u sheegtay wuxuu yiri dariiqii rasuulkii wixii diinta laga saaray laga jiitay marka gabaygan waa gabay caana runtii gabayga dardaaran la dhaho oo isaga laftiisa u baahan in laga sameeyo documentary iyo magaranaysa falanqayn aad u dheer waad mahadsantiin maxay adiga kula tahay